dareenkaas tashuushka ee beenbeenta ee la furay oona maskaxda laakiin ku kaydinin aan qoraal ku kaydiyay sidana ahayd gabdhihii bilaa iyo barbaarkii dalkaygow birlabkaan ku dhaatow bilicda iyo quruxda iyo ubaxaanu beeree isha buuxinayow ka jira bariiqada waxaad eega biisaan barmiyaanay nagu noqon boodyaha iyo dhuuxiyo xoogga maanta buuxow berritana hoggaankan baxnaanada ka sugayow bartaad shalayta joogteen baaca sare u dhaafoo buundadaad dhisayseen hoos ha u binaynina buundadaad dhisayseen hoos ha u binaynina garashadii bulaashaay haygu noqon barkumataal hadafkii habaalmarin halka aad beegsanayso waayaha bardoodami hadafkii habaalmarin halkaad beegsanayso waayaha bardoodami baalashiina yay qoyn bahalkaad hayseen ha ugu dhicin boholaha ha ugu dhicin baaqaygu wuxuu yahay dhalinta boga ku taallay waa OSU nolosha maxaad ka barateen baahida dadweynaha dukaanka iyo xanuunada dhaqaatiir bogsiiso dhaawac الله أكبر dhaqaatiir bogsiiso dhaawacooda baanto noqda lagaga bixi karo midka laba bogleeyo beerka aan fayoobay intuu buuq idinku furo baaxadiina yuu dhimin midnimaa badiga iyo biyo kama dhibcaanahe ku baraarugsanaado midib hayeelina yaan laydin qaybinin waxaan jirin yaan laydinku buufinin idinka ayay ummadda Soomaaliyeed oo dhan idin eeganaysaa sababtu waxa weeye ururka dhalinyarada ogaadeeya ayaa bilaabay dhalinyaro Soomaaliyeed oo qurba joogta oo intay isu timid oo funaanada cala ku sawiran yahay samaysteen meel arrin dadka ka tashaday Soomaaliya oo dhan baa ku dadatay oo wax ka baratay ururka dhalinyarada ogaadeeya sida uu ekaada ay oona ku ekaanaysaa waan ku celinayaa mar walba siday oona ku ekaato ayay ummadda Soomaalida ogaadeeya u ekaanaysaa siday Soomaalida ogaadeeya u ekaato ayay ummadda Soomaaliyeed u ekaanaysaa halka waxaad ka garanaysaa inaynu nahay dad tusaale u ah qowmiyadan oo Soomaaliya hal shay oo aad iyo aad aan u jeclahay baan ku soo gunaanadayaa waxaan la hadlayaa maadaama shir dhalinyaro yahay madashada dhalinyaro tahay dhalinyarana ay tahay mustaqbalka iyo bilicda iyo sharafta iyo xoogga iyo tayada iyo dareenka ummadda ay tahay waxaan leeyahay dhalinyaradeennu akhlaaqda waa inay ilaaliyaan dad muslimiin baynu nahay diin baynu macaan baynu haysanaa kaamil ah oo meel la dhaafin oo cadaalad ah Ilaahay ina siiyay taa inoo ka duulayna ayaan xaqeena gaari karaa wiilasha iyo gabdhaha waxaan leeyahay cabsida Ilaahay go'aanka aan ku qabsano gabdhaheena waxaan leeyahay asturnaada xijaabka